magaciisu waa Frederick Cumar Kanote. waxa uu dhashay 2 Sebtembar 1977. waxa uu ku dhashay deegaanka Rowan Elb. waa laacib kubadda cagta dheela oo u dhashay dalka Mali balse ku dhashay dalka Faransiiska. culayskiisu waa 82 kilogram, dhererkiisuna waa 1.92 mitir. diintiisu waa Islaam. waxa uu qabaa haweeney la yiraahdo Faaduma. waxa uu haystaa 2 carruur oo la kala yiraahdo Ibraahim iyo Iimaan. Cumar Kanote ayaa waayihiisa kubadda cagta ka soo bilaabay kooxda kubadda cagta ee Lyon 1997. waxa uu soo dheelay kooxaha West Ham United, Tottenham Hotspur iyo kooxda Sevilla ee waddanka Spain. Kanote ayaa sheegay in 20 jirkiisii uu doonayay inuu baaro diinta saxda ah ee dunidan. waxa uu sheegay in diinta saxda ah ee adduunyada taalla ay tahay midda Islaamka. waxa uu yidhi Kanote, waan baaray dhammaan diimaha. waxaan arkay akhlaaqda wanaagsan ee muslimiinta. Mali ayaan soo booqday si aan u ogaado muslimiinta. waxaan ku haystay magaalada Lyon saaxiibo fara badan oo muslimiin ah, kuwaas oo u dhaqankoodu wanaagsanaa. Cumar Kanote ayaa sheegay inuu aad u jeclaystay shakhsiyadda amiirkii mu'miniinta Cumar bin al-Khadaab. waxa uu sheegay inuu la baxay magaciisa maadaama uu jeclaa taariikhda Cumar bin al-Khadaab. Kanote ayaa dalka Mali ka sameeyey mashaariic fara badan oo lagu horumarinayo agoonta muslimiinta. Cumar Kanote waxa uu diidi jiray waxyaabaha ay diinta Islaamku diidayso. waxaa jirtay mar uu iska diiday inuu xirto funaanadda kooxdiisa Sevilla ee dalka Spain kadib markii lagu xardhay astaanta sharikad xayeysiisa qamaarka. intaas kadib naadiga Sevilla ee dalka Spain ayaa go'aansatay in ay Kanote u samayso funaanad aan lahayn astaanta sharikadda. warbaahinta dalka Spain ayaa weerar ku qaaday Kanote kadib markii uu dhowr jeer diiday inuu gacan qaado gabdhaha wariyeyaasha ah. wariye ayaa si jees-jeesa u weydiiyey waxa uu ka yaqaano Islaamka, balse Cumar Kanote ayaa ugu jawaabay waxa tahay jaahil aan Islaamka aqoon. Kanote ayaa noqday laacibkii ugu wanaagsanaa ciyaartoyda qaaradda Afrika sanadii 2008. waxa uu diidi jiray inuu afuro bisha Ramadaan. Cumar Kanote ayaa muslimiinta magaalada Sevilla ee dalka Spain u iibiyey masjid weyn. dadka magaalada ayaa ku soo wargeliyey in shirkad dhismaha ka shaqaysa oo u kiraysnaa dhulka uu ku yaallo masjidku ay sheegtay in heshiiskii uu idlaaday ayna doonayso in dhulkeeda ay mashaariic kale ka fuliso. balse Kanote ayaa muslimiinta u iibiyey dhulka masjidka. waxa uuna ku iibiyey lacag dhan $700,000 Maraykanka. intaas kadib waxa uu sheegay in arrintani ay waajib ku tahay, balse aanu doonaynin in ay cid uga mahadceliso. Cumar Kanote ayaa sidoo kale qabsaday warbaahinta dalka Spain iyo kuwa dunida kadib markii kooxda Sevilla uu gool u dhaliyey. intaas kadibna waxa uu la soo baxay funaanad lagu soo qoray magaca Falastiin, waxaana la siiyey calaamadda digniinta. waxa uu sheegay in Falastiin ay tahay qayb ka mid ah diintiisa Islaamka. waxa uu dhowr jeer caawiyey dhallaanka magaalada Gaza. qadiyado fara badan oo ka tagnaa caalamul islaami ayuu ka hadli jiray Frederick Cumar Kanote.